asalaamu calaykum. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno saamaynta kala duwan ee qofka narcissistiga wax kala dhexeeyaan ay ku yeelan karto, ama qofka victimka ah oo la abuse gareynayo saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa dhibaatooyinkaas loo geysanayo. Number one, emotional and psychological effects waxaa waaye qofkaas inuu dareemo low self esteem waxa lahayo, ama asaga shakhsiyadiisa oo noqoto wax liita oo daciif buu noqonaya, shakhsiyadiisana shakhsiyad liidatay noqonaysaa. Waxaa ku dhacaysa qofkaasi in uu mar walbo iska shakiyo because of constant gaslighting oo kale, inuu asaga ka shakiyo, dareemihiisa ka shakiyo, xaqiiqada ka shakiyo, shakis fara badan baa ku dhacayo, anxiety fara badan baa qof ku dhacayso in like if that person is walking on eggshells oo kale, in qofkii uu dareemo sidaasoo ku soconayo kale eggshells oo kale. Depression qofka ku dhacayo oo isheeg inuu qofkii uu stresskii inta ka bato depression isku bedelo. Qofkii waxaa ku dhacayo hurdo la'aan baa ku dhacayso, waxaa ku dhacayso inuu cuntada cuni waayo, waxaa qofku ku dhacayso oo victimka ahaa dhiigkar ayaa soo wajahayo oo ku dhacayo, appetite-ki ayaa qofka ka tagayo. Waxaa qofka ku dhacayo markii social effects kala fiiriyo in uu noqdo qof isolated ah oo bulshada wax xiriir aan kala dhexeynin, maadaama qofkaani qof la isolate gareeyay oo kaligiis uu yahay. Wuxuu noqonayaa qof aanan bulshada xiriir kala dhexeynin, wuxuu dareemayaa cidlo, wuu dareemayaa loneliness, buu dareemayaa, wuxuu dareemayaa unsupported, inaanan uu haysanin caawimaad ee ka baxsan qofkan oo xanuunsan uu la nool yahay, inuusan helaynin buu dareemayaa. Bulshadii waxyaabo badan oo kaga xirneed meesha markay ka baxdo saameynteeda oo isheeg dhib oo asiga markaasi saameynaysa ayuu kala kulmaya, because qofkan wax xiriira bulshada lama lahan, bulshadiina wuu ka dhex baxay, kaligiis buu yahay. Kaligiis hadduu yahay marka waa dhibaato ayadana aad u fara badan weeye. Sidoo kale qofkan waxaa ku dhacayso isheeg markii la isolate gareeyo oo bulshada xiriir uusan la lahayn, wuxuu noqonayaa qof aanan wax badan ka warhaynin oo updated ahayn, qof kaliya qofkii uu la noolyahay xanuunsanaa wuxuu u sheego iyo wuxuu uu dhahaa sameynin bas og oo ma ku xiran waaye. waa qof wax information dhan aanan haysanin oo dhan kasta, hadday noqoto familkiisa, hadday noqoto bulshadii kale. waa qof xirxiran oo qol ku xiran waaye, waa qof qol lagu xiray oo waxba ka warhaynin waaye. Sidoo kale financial effects bay qofka ku yeelanaysaa dhibaatooyinkii loo geystay. Tusaale ahaan oo kale qofkan wuxuu noqonayaa qof ku dhacay dhaqaale burbur, oo tusaale ahaan oo kale qofka wuu shaqaysan jiray, business kala duwan buu lahaa, lacag buu lahaa, laakiin lacagtiisa hal faa'iido kuma qabo, qolo kale ku faa'iideyso. Qofkii xanuunsanaa oo la noolaa ayaa lacagtiisa ku faa'iideyso, ama narcissistiga ahaa iyo dadkiisa iyo tolkiisa. Laakiin qofkan victimka ah dhaqaalihiisii ama lacagtu asaga shaqaynayo oo mushaar ahaan u qaadanaya ha noqoto, ama lacag hore u shaqaystay oo business ah ha noqoto, asaga wax faa'iido kuma qabo. dhaqaalihiisii oo dhan qolo kala maamulayso oo kuma naafacaadayso. Qofkii victimka ahaa ama la dhibaateeyay dhaqaalihii waxba kama helayo, waxba kama faa'iidayo, walaa dadkiisana waxba kama faa'iidayo, sababtoo qofkan waaba qof isolated ah oo xiriir la lahayn, familkii iyo bulshadii kale xiriir lama lahan. soo marka awood uu wixiisa hantidiisa ku difaacdo ma lahan, dad baa u maamulayo, dadkiina maskaxday ka haystaan oo asagii kama baxsan karo. awood uu qofkan kaga xoroobo ma lahan. waa waqti bay qaadanaysaa in qofkan uu kaga xoroobo qofkan kale oo dhibaateynayo. soo marka dhaqaale burbur baa lagu sameynaya. badanaa dadka la manipulate garay ama dadka narcissistic ee target garaysan waa qof dhaqaale haysta ama lacag haysta, waa qofka la abuse gareynayo. qof aan waxba haysanin miskiin oo adiga wax kaa rabo, qofkan asagaba caqligiisa u qaab. marka ugu horeysa wuxuu sameynaya background check, waa qofkan inuu yahay qof shaqaysanayo, mushaar soo galayo, ama qof lacag leh waa inuu yahay. marka qofkaas dhaqaale burbur ku dhaca waa saameyn dhanka dhaqaalaha weeye. adigoo shaqaysanayo oo mushaar ku soo galayo ama businesskaada kuu shaqaynaysa baa haddana ka gaajaysantahay, ka baahantahay.
oo lagaa dhiga qof liita oo daciif ah oo qofka kale wax ka sugo oo gaajeysan financially independent matid oo xor matid dhaqaale ahaan qof kale qofkan aad la nooshaa wax kugu darsan yihiin ba wax ka sugaysaa imagine adoo mishaar qaadanaya ama business leh oo haddana leh walaalo waxay sii waayan daro sidoo kale qofkan hadduu yahay qof wax dilo oo physical abuse sameynayo qofkii victimka waxaa ku dhacay dhaawacyo ayaa jirkiisa ay ka muuqanayo ama dhibaatadii loo geysanayo way kasoo korbaxaysaa dhaawacyadii baa fara badanayo qaarkood waxay isku bedelaan kuwa internal oo gudaha dhaawacyadaasi xanuunaad chronic ayay sameynayaan sidoo kale waxaa ku dhacaya qofkan ama saameynta waxaa ka mid ah in qofkani oo post traumatic stress disorder in xanuuno yiraahdo oo ku dhacaan ayagoo complex ah weliba saameyntu way fara badan tahay saameynta oo qofkan xanuunsan uu qofka kale ku sameynayo way fara badan yihiin aad ayayna u fara badan yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa waaya qofkani inuunan ahayn qof xor ah dhan kastaba xor ka ah qof aad loo kontaroolo inuu yahay qof dhaqaalihiisa lagu kontaroolo oo dhaqaalo burbur lagu sameeyo inuu yahay qof aanan bulshadii xiriir lahayn oo ka indha xiran oo dhinac kasta ka xirxiran inuu yahay qof asagii ku nool cabsi shakis inuu asaga iska shakiyo ku nool buu noqonayaa qof maradiisii ka cararayo oo shakis badan oo kalsoonidii ka dhuntay oo cid kalena aanan ku kalsooneen qofka wax kala dhexeeyaan oo dhibkan u geysta moogay cid kale aanan aamini karin oonan ku kalsooneen oo waxbana samayn karin bay noqonaysaa xataa qofkan wuxuu iska shakinayaa adiga horta qof nooceed ahayd yaa qofkii wuxuu hilmaamayaa xataa qofkuu ahaan jiray qofka hilmaamayaa oo waxaa ku dhacayo loss short memory oo qof ku dhaca xasuustiiba ka baaba'ayso inuu xasuustiisa xataa saameyn bay ku yeelanaysaa dhibaatooyinkaas qofkii waxaa ku dhacay dhiigkar because of too much pressureka iyo dhiig iyo stresska iyo depressionkiisa waxaa ku dhacaysa dhiigkar baa ku dhacayo qofkii waxaa ku dhacay hurdo la-aan appetite-ka uu ka tegayaa naftiisa inuu daryeelo ka tegayaa waa qof asaga dhanba wuxuu noqonayaa qof oo iska aamusan oo forgetful oo hilmaan badan qof oo isaga dhanba oo activeness hadduu ahaan jira qof firfiran oo wax badan qabto oo very active hadduu ahaan jira qof iska noqonaya lazy ah qof iska maqana joogu noqonaya qofkii oo isagoo kula joogo ama aada sheekeysanaysa baxarka qofkii iska baxay wuxuu noqonayaa qof maqana joogo ah wuxuu noqonayaa qof oo mar walba isaga dhanba oo iisheeg qofka caadiga aanan ahayn ama asagoo soo jeedaba hadduu doono seexanayo amaba seexanayaba marka saameynta xanuunaadkaas kala duwan ama narcissistic dadka ay u geystaan way fara badan yihiin intaas waa example hadda soo qaadanay cuqdada in adiga cuqdad aad yeelatid marka heer maxaa lagu gaarsiinaya meel fog oo inaad adiga kasoo kabatay waqti dheer ay kugu qaadanayso ma fahamte soo marka ugu horeyso calaamadaha ugu horeeyo oo aad ku ogaan karto qofka inuu narcissistic yahay baa next video kaga hadli doonaa si aad isaga ilaaliso uga taxadirtid oo qofkaasi waxbana aad iskugu darsanin insha allah la soco.